hadda waxaa khadka si toos ah daawadayaal ugu jira gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salabaan Maxamuud Aadan gudoomiye maanta maxaad ka wada hadasheen idinka iyo Soomaaliya أي صوماليا حتى شر مدحوينون بوها يعني لكن أنا وحن راعي مدحوينات هيه أنا مدحوينها كغيب قلي هيه وحي أنو أيوتين وحوها إن هذا الذي يدير الله بلابو هيه هذا الذي يدير الله بلابو أيوتين هيه marka wixii hore ma idinaan fulina marka wixii hore lagu heshiiyay fulisaan ha afartii shire hore ee dhacay ee ilaa madaxweyne Siiraayo haye joogay haye marka fulisaan haye iyo tii ugu dambeysay madaxweyne Muuse sababa haye marka fulisaan haye marka suuba wada hadal iman kara haye laakiin wada hadal Soomaaliland iyo Soomaaliya iman kara haye ilaa wixii ka soo baxda ballan qaadana hore haye safiirka ku fasiri wixii hore la ballan qaaday haye ilaa ka soo baxdaan wada hadal jiri maayo marka gudoomiye imka shacabkii Soomaaliyeed iyo kuwii Soomaaliland way ku dhageysanayaan shirkaasi wax natiijo ay kamay soo bixin miya wax natiijo maanta ka soo baxay ma jiro waan ahayn Soomaaliland waxay taagan tahay marka wixii hore la fuliyo markaas ay wada hadal ma jiraan wax guddi farsamo oo la magacaabay oo wada hadallada halka ka sii wadaya marka ay fuliyaan waxa kan wixii hore lagu heshiiyay markay fuliyaan markaasay furmi karaan laakiin hadda wax laga wada hadlayaa ma jiro wada hadalladan Mareykanka iyo Ethiopia ayaa goobjoog ka ahaa iyaga doorkoodu muxuu ahaa Mareykanka waxaan riixayay haye Mareykanka dawladdan farmaajo iibinayay haye taada u dhiganaysaa tayda u dhigi maysidee haye waa kan doorashada gelaya haye marka Mareykanka ninkan gacan siinayay haye isaga wuxuu doonayay inay soo baxdo wada hadalladii dib u bilaabmeen Soomaaliland iyo Soomaaliya marka Mareykanku marka dooda lagu warkii ninka la yiraahdo warkii mooyee ninka la yiraahdo Abiy Ahmed waa ku gacan siinayay marka Mareykanka iyo Ethiopia iyo farmaajo isku dhinac bay ahaayeen miya ayoolaysa farmaajo madaxweyne farmaajo Ethiopia iyo Mareykanku ma isku dhinac bay ahaayeen Ethiopia iyo Mareykanku waxay iibinayeen in haye in la shiilo laga wada hadlay kala hadli doona haye marka goorma ayaad soo baxaysaan shirki marka sidaas uu ku soo gabagaboobay sidaas sheeg goorma ayaad soo baxaysaan oo wadanka ku soo laabanaysaan shirki politicalka sidaas uu ku gabagaboobay anaguna haddaanu berri joogno dee saasna waanu soo bixi hadii marka ma jira doonaan miyaa gudoomiye kulamo dambe oo aad wada qaadanaysaan Soomaaliya intaad joogtaan Djibouti suuqa ayaa aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salabaan Maxamuud Aadan oo khadka telefoonka igu waramayay sidoo kale waxa isna khadka ku jira oo gudoomiyaha golaha guurtida la fadhiya ambassadorka Soomaaliland ee wadankaasi Djibouti Cabdifataax Saciid Axmed ambassador adigoo raaliya gudoomiyuhuna dhowr goor buu ku celceliyay waxyaabaha hore lagu heshiiyay ee la fulin waayay maxay yihiin
waxay ugu horeysa waxa weeye inaan la carqaladeen horumarinta mashaariicda iyo humanitarianka arrimaha bini'aadamnimada inaan carqaladeen aan la siyaasadeen maxay arrinkii hawada hore lagu heshiiyey oo ogtahay inay ka baxayn Soomaaliya waxa kale oo kamid ah in hadallada xanafta leh aan runtii media la isku marin waxaad ogtahay in dad ka soo jeeda asal ahaan Somaliland aanay ka soo qayb galin oo heshiisyadii hore kamid ahay lixda qodob ayaa runtii ayaan in la fuliyo ayaa muhiim ah hadii kale wada hadal amka bilaabmay anagoon arkayno ma jirayso qodobada hore